بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga toddobaadka iyo Soomaaliya waxaan idin kugu soo gudbinaa barnaamijka alaaba qodobada ugu waaweyn ee toddobaadkan markaas dhacay haddaba qodobadaan idin kugu hayno toddobaadkan waxa qayb ka maamulka gobolka Banaadir oo mar kale ku celiyay in amnigiisa uu isagu madax bannaan yahay cidna aysan jiri doonin inay kaga turjunto dhinaca amniga barnaamijka toddobaadkii tagay ee kugu soo gudbin doona saaxiibayaal qodobadana kale waxa qayb ka noqonaya xood iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo toddobaadkan gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kana hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan in lagu heshiiyay dhibaatooyinkii ama laga heshiiyay dhibaatooyinka ka jira magaalada Beledweyne qodobadaas iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin weerar uu ku dhaawacmay afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isagana ka dhacay magaalada Muqdisho iyo weeraro kale iyo sidoo kale dhaawac xaaladda caafimaad ee afayeenka xukuumadda ayaan eegi doonaa saaxiibayaal oo kugu soo gudbin doona doorashooyinka dalkana kama marna saaxiibayaal waan idin kugu soo gudbin doona inta barnaamijka aynu kugu jirno anigoo Cumar Guux ayaa alaba soo saara halkan idin kala socodsiyo ku soo dhawaada barnaamijkeena oo intaasi ka faahfaahsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya markale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ka hormareynaa doorashooyinka dalka iyo sidoo kale tagitaanka saraakiil uu hogaaminayay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed arrimaha doorashooyinka dib ayaan ugu soo laaban doonaa toddobaadkan waxa dhacay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaalad amni iyo sidoo kale mid markaasi amni darraba haddii aynu ka hormarno taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toddobaadkan gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiil kala duwan oo ugu horeeyay taliyayaasha ama saraakiisha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan gobolkiisa Hiiraan waxaa sidaas oo kale taliyuhu markii uu Salaan Sharaf iyo sidoo kale soo dhaweyntaas uu kala kulmay saraakiisha waxaa loo galbiyay xirada Lamagalaay oo ku taala Beledweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan waxa halkaas uu kula kulmay General Xuud oo ahaa nin maleeshiyaad ku hogaaminayay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhibaatooyin kala duwan intii uu joogay gobolka gaar ahaan magaalada duleedkeeda inta uu ku sugnaa markaas ay ka dhaceen gudaha magaalada Beledweyne kulankaas waxaa looga hadlay sidii looga heshiin lahaa xaaladda amni ee ka taagan magaalada Beledweyne weeraro dhabagal ah ayaa lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo aadayay amaba safar u galayay deegaanada kale ee hoostaga magaalada Beledweyne kuwaasi oo ay ku qaadayeen maleeshiyaadka Xuud uu hogaamiyo ugu dambeyntii xal ayuu u muuqdaa in laga gaaray kadib markii Xuud soo dhaweyntii taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka qayb galay magaalada Beledweyne oo kulan uu kula qaatay taliyaha iyo saraakiil kale ee qaybta 27aad ka tirsan waxaase la isku afgartay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka markaas loo aado xalka labada dhinac ee Hirshabelle iyo sidoo kale Xuud waxaa laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxa uu halkaas kula hadlay warbaahinta waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gabi ahaanba dowlad goboleedyada dalka looga baahan yahay inay dalka badbaadiyaan xaalad amni darro oo mar kale dhacdaana aan loo dulqaadan karin dhinaca kale uu sheegay in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan looga baahan yahay in doorashada sideedii loo baahnaa ay uga dhacdo sida ay uga socoto maamul goboleedyada dalka waxaana uu tilmaamay in marnaba aan la carqaladeyn karin doorashadu ciddii ka hortimaadana ay markaas iyagu diyaar u yihiin inay la dagaalamaan waa sida uu hadalka u dhigay waxaan dhacay waxaana soo martay qaran Soomaaliyeed oo taagan inaan dumin maxaan ka haynaa maanta waay su'aal aad isweydiin u lawaay 40 sano la jooga maanta qof walba Soomaaliyeed waa ciil kaambinaya wala way 40 jirka wiilka ah ma arag dawladnimo Soomaaliyeed fiican ee nidaam iyo sharci ku socoto iyo dawladnimo sax ah waxbarashadii ay hoos u liidata caafimaadkii liita ciidankii baaba'ay waxa soo dhan oo dhiba ay keenaysaa dawlad xumad inaan mar kasta ka foojignaano marka dawlad dambe inay burburtaa loo baahan yahay Soomaaliya qofkan waa yarag noqda waa inuu u bislaadaa wax xun inuu ka fogaado
wax fiicanna qaato inaan maalin walba wax xun qaadanno un inaan ra'yiga qaldan qaadanno un inaan dalkayaga burburino oon gacnahayaga ku burburino xag noolka uma laha arrinta aniga aan u imid waa arrin federaala ma aha arrin hirshabeelle iyo hirshabeelle waa ka soo qaadacnay wixii ilaahay ka dhigay noqon doontaa laakiin midda federaalka xaq waxaan u leeyahay inaan ragga la heshiisiin waayey ilaahay inuu igu galaysto inaan heshiisiiyo oon isu keeno oon soomaali mideeyo maxaa dhacay midnimaa wax lagu gaaraa midnimaa horumar leh midnimo ayaa waxayna gaarsiin kartaa dalalka adduunka meesha ay gaareen oo kale waxaa la yaab leh in mas-uul soomaaliyeed oo dalka u jejebiyo caro ama mas-uul kale caradiis aadee la yaab u leeday waxaase laga joogo ciidamada soomaaliya hadda ka hor waa dayaceen dalka aaday u dayaceen maxaa dhacay hadday ayaga taagan yihiin aysan qabiilada kala raacin waxaa imaan lahayd in dalka ay badbaadiyaan sida masar ka dhacdoo kale adduunyada qaarkeed sida ka dhacda ciidankiina marka waxaa idinka rabaa ama saraakiishiina dalka inaad badbaadisaan xumaan inaad u diidaan qofka waxa xun wadana aad gacan ku dhufataan in waxaan u soo baxay ay tahay wixii naga maqnaa ama xuquuqdii naga maqneed inaan baadi goobo meel kasta ay ku jirtana inaan ka keeno taas waa ballan horaan ballantaa u galnay haddana sidii bay iga tahay dadka la boodboodayo wararka waxaan leeyahay iska daaya warxumatashiilka dadka yaan la isku dilin dadka wanaag hala tuso nabad iyo wanaag wax ka fiican ma jiraan intaas kadib waxaan leeyahay doorashada dalka ka dhacaysa waa inay si habsami ah oo xushmad leh aga dhacdaa gobolka hiiraan waa in aan lagu dagaalamin buuqna uuna ka dhicin waxaa dan u ah dadka doorasho inay ka dhacdo gobolkaoo dhan bay dan u tahay dadka isku dayaya marka inay carqalateeyaan waxaas waxaan leeyahay ka fogaadaan yaan la carqalateyn doorashada wanaag iyo usluub iyo si xilkasnimo laha ku dhammaato intaasi kadib taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed Generaal Maxamed Tahliil Biixi ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay waxaana uu u mahadceliyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay in la isugu keeno dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale xuud oo isagu in badanba dowladda warkeeda maqlin waayay isla markaana ku jiray dowladka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa sidaas oo kale uu sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo nabadda waxaana uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya Beledweyne ay ku noolaan doonto ama shacabkeeda ay ku noolaan doonaan amni iyo sidoo kale kala dambeyn على أشرف المرسلين أنا هذا الكي والله قضب كلي إن أنا هاد عليو ضدك إن لا شقيي إن أنا أمد أود عينه لبلاس كلي أويه أولا وحن كبلابها يا ولا الكي جنرال أبو بكر ورسمحود ورنتي جوشان يا مصلحدان يا نبضان فروة asaga iyo walaalaha la socda saaxiibada la socda iyo intii aan ka soo tagnay waan xaq uga soo tagnayba waa mahadsantihiin inaad nabadda gobolka Hiiraan iyo midda ummadda Soomaaliyeed aad furo u noqotaan waxaan kala u mahadcelinayaa ilaahay baan u mahadcelinayaa mar walbana mahadda iskale oo guushaas iyo maslaxadaas ummadayada garansiiyay nawaafajiyay inaan qaadano waxaan u mahadcelinayaa مسؤولينتي كلا دونا قبل كهيران قارهان بلدوينة شوقي أو نلا شقي أو نسود دويي وحنا لقبتي أنا المعيو ذا كلا قادين آد بانو مهدلين هيا سيدو كلا اسمدي هي نبضون هذا وجوين هي وقاس يوسف وقاس حسن وقاس خليف وقاس روبل وقاس مؤمن وقاس ورفاء هي نبضون هذا نلا شقي nabadda nagala shaqeeyayna aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada nala shaqeeyayna waa u mahadcelinayaa
saraakiishana soo dhoweysay waa u mahad celinayaa. waxaan halkaan si gaara uga xusahayaa jenaraal Tawane oo runtii garabkayga taagan qaybna ka qaatay nabadan iyo hawsha aan hayno la'aantiisna wax badan ay naga halaabi lahaayeen. jenaraal Tawane aad baad u mahadsan tahay. saraakiishana soo dhoweysay dhammaantiinna waa idin salaamaya, waa mahadsantihiin. ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa in ilaahay nabad xasisho idin siiyo meelaad joogtaanba. ilaahay dalka iyo diinta idin xasiliyo, jilaalka idin xasiliyo aad ku jirtaan iyo abaarta, roob xasilan ilaahay idin siiyo. aan intaas kaga baxno xuud iyo sidoo kale arrimaha ku aadan inuu Muqdisho gaaray iyo wadahadaladii uu la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. markan doorashooyinka dalka haddii aynu eegno magaalada Baydhabo iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka waxaa horey uga dhacay doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo midka aqalka sare oo gabi ahaan la dhameystiray. golaha shacabka kuraas qaar ayaa ka harsan, waxaase heshiis ay gaareen golaha wadatashiga qaranka oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha awoodiisa la dhimay Xuseen Roble. waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay markaas doorashadu gabi ahaanteed lagu xadidayay xilliga ay ku dhacayso. ilaa 25 Febraayo ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo haddii ay suura gasho, waxaase laga digay in waqtiyo kale ay ku darsato xilligaasi. magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay doorasho markaas iyagoo ay ku soo baxeen ilaa 5 xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. maamul goboleedyada kale sida Jubbaland, Hirshabelle, Puntland iyo Galmudug waxay soo saareen kuraasta kale ee lagu qabanayo magaalooyinka dowlad goboleedyadaas, waxaase markaasi socda qabanqaabada doorashooyinkaasi iyadoona kuraasta qaar ay doorashadooda socoto. waxaa la filayay 25 bisha Febraayo inta aan la gaarin gabi ahaantood la soo gabagabeeyo, haddii ay markaasi ku darsatana in Febraayo gabi ahaantood doorashada la soo xiro. sayashee dowladaha caalamka ee garabka siiya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu ka digay in muddo kale lagu kordhiyo xilligii ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka. haddii aan intaas kaga baxno arrimaha doorashooyinka dalkana markan maamulka gobolka Banaadir ayaan eegi doonaa saaxiibayaal, gaar ahaan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Caliyare Cabdi Wardheere ayaa shir jiraayid oo uu warbaahinta ugu qabtay magaalada Muqdisho. waxa uu ku faahfaahiyay kulamo kala duwan oo ay la qaateen odayaasha dhaqanka gobolka Banaadir oo ay kala hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan amniga guud ee gobolka Banaadir. Caliyare Cali waxa uu sheegay in dhaqanka gobolka Banaadir ay kulamo kala duwan la qaateen isla markaana ay kala hadleen xaaladda amni ee gobolka, gaar ahaan banaanbaxyo la sheegay in looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo isla markaana ay qorsheynayeen xubno ka tirsan mucaaradka. taasi oo Caliyare Cali gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir uu sheegay in lagu carqaladeynayo ammaanka guud ee gobolka. waxa uu tilmaamay in odayaashu waxyaabaha kala hadleen arrintaasi ay ahayd, waxaase dhinaca kale uu sheegay in xilligan gobolku uusan u baahnayn banaanbax iyo wax la mid ah iyo abuuritaanka khalqal amni. arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ay u kala hadlay ama warbaahinta uu uga hadlay oo shacabka Soomaaliyeed sidoo kalena uu u sheegay inay guryahooda ku sugnaadaan haddii banaanbaxa la qabanqaabinayo uu dhacayana sifo sharci ah uu ku dhaco lana sugo amniga guud ee banaanbaxayaasha. inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan dadaalkii ay wadeen duubabka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ee ku aadanaa sidii la isku waafajin lahaa awaamiirta iyo go'aanada maamulka gobolka Banaadir iyo rabitaanka saaxiibada kale. ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan halkaan ka bogaadino dadaalka ay wadaan odayada dhaqanka. innaga arrintaas wax weyn bay noo tahay, waan muxuu ahay bogaadinaynaa, waa ku faraxsannahay. wax muddo dheer la'aa ayay ahayd in la helo odaya u istaaga danaha gobolka Banaadir iyo dadka gobolka Banaadir. muddo dheer yaan runtii arrintaas baahi weyn loo qabay inay hadda odayadu isla qaameen ayadoo aanay qoraal gaara furaha ku roginna farxad weyn ay noo tahay. waa soo dhaweynaynaa dadaalka odayadu wadaan. shalay iyo daraad wada hadallayaan odayada yeelanay, waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaaladan inaan banaanbax laga samayn karin iyo nuucyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaanbax ugu darnaato. waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni. waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo, oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin
ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey madaxweynuhu bogaadiyey aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeedda haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiya annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan arrintaas waa arrinta waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la ballansan yihiin garabkii kale waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno horena aan u sheegnay oo ku salaysan badqabka dadka gobolka banaadir annaga dadka gobolka banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday wax lagu saleeyo doorasho muddo gaaban soconaysa qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay ku faraxsannahay bogaadinayno garab istaagayno odayaasha odayadu waa odayadeennii waxaan ku qanacsannahay inay fahamsan yihiin culayska amni eena haysta inay fahamsan yihiin in arrintii doorashada laga heshiiyey oo maanta aanay jirin baahidaas waana garab taagannahay waana soo dhowaynaynaa waana ixtiraamaynaa wixii ay naguna soo laabtaan haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad yaad u mahadsantihiin waxaan ku darayaa oo aan rabaa inaan sii adkeeyo sida aad ka warqabtaan doorashadiyaa la galay doorashada haddii la galay dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan federaalku waa mashquulayaa arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go'aankeennii ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir oo uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasaddiisa iyo amnigiisa intaba oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nuuc kastoo ay tahay waxaan ola simannahay wasaaradda amniga sida 17 gobol ee Soomaaliyeed oo kale ayaan ola simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin dhuusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jowharna ka socon karin ma jirta sabab culays gaar ah loo saaro dadka gobolka banaadir arrintaas marka waxaan rabaa ayadan inaan sii adkayno maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad ee ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa u fariisatay xukunka 9 sano oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dambigaas laygu eedeeyay waa galay ma gelin doodan ka qaba gaashaanle dhexe Cabdullaahi Abuukar Xasan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad ee Galmudug ayaa weydiinaya 9 sano oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyay jiritaanka dilal iyo dhac ay ka geysteen degmada Matabaan xafiiska xeer ilaalinta oo isku howlay dhacdooyinkan tan iyo bishii aan soo dhaafnay ee December ayaa ugu horeyn maxkamadda waxa ay horkeeneen maragyadii booliiska ee hubinta amni ka hayay gawaarida safarka u ah gobolada kale isla markaana dhexmara Matabaan hal xabaa ku dhacday kana shaasi ku dhacday mashaas ma ka baxay sidoo kale baaraha kiiskan ayaa maxkamadda horgeeyay natiijada baaristiisa waxa geystay eedeysanayaasha hortayda fadhiya ee 9 ah waxay u geysteen ayakoo dhammaantood ah oo isku tagay meel kala duwan ka yimid waxay isku yimaadeen kontaroolka meesha ka shisheeyda kontaroolka oo la yiraahdo Shiina Qarxis waxay dhigteen isbaaro waxay dad shacab ka qaateen gaadiid socday musaafir ka qaateen lacag $400 ah kadibna waxay soo weerareen kontaroolkii ayakoo qorsheeyay si qorsheysan u soo weeraray oo u soo diray rag kamid ah ayaga goobtaasna ay ku soo weerareen booliiskii joogay kiiskaas markaan baaris ku sameeyay qoto dheer waxaa noo soo baxday in falkaas ay geysteen dambiyadaas ay geysteen ragga xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda la wadaagtay waraaqaha dhaawaca 2 qof oo rayd ah iyo dhimashada askar ka tirsan booliiska iyadoona gaashaanle sare Cabdullaahi Muuse Kayse uu maxkamadda ka dalbaday in eedeysanayaasha lagu wada xukumo
ciqaabta falalkii ay ku wada kaceen. isbaaraasna ay ka dhalatay dilka iyo dhaawac qiraal ay yihiin maxkamadda horteeda ay ka qirteen sidaas awgeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa eedaysanayaashan waa kuwii galay falka dembiga ah ee geystay waxaan ka codsanaynaa in dhammaan maxkamadda ay ku xukunto dil toogasha. qareennada eedaysanayaasha ayaa dhankooda difaacooda muujiyey. marka saas daraadeeda dhacdadan ay conflict waaye ciidamadu ka dhaxdhacay mar walbuuna dhacaa axadiya u dambeysay gurceelu ka dhaxdhacay matabaanu ka dhacaa galgacyu ka dhacaa meel kastuu ka dhacaa conflictiga dhacay dhacdadaas waa 444 eedahan iyo waxaan xusan dhan laguma qaban karo 444 muxuu leeyahay isku dhax maray dhinacyo dagaal safin waay sidaas darteed waxaan codsanayaa muwakkiliinteeda xorriyadooda in loo soo celiyo kiiska marxuumka magtiisana dawladdu ay bixiso maxkamadda sharafta la way mahadsan. maxkamadda ayaa ugu dambeyn go'aan ka soo saari doonta kiiskan xafiiska xeer ilaalinta uu ku soo eedeeyay askartan. qaybihii dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal gudaanidaas aan jeclaan ku hakiyo barnaamijkii bandhigga toddobaadka iyo sidoo kale Soomaalida. aniga Cumar Guuxa ayaa barnaamijka alaba soo saara halkan idin kala socodsiinay dhanka kaamirada waa saaxiibkay Mahad Arkay intaan ugu kulmi doonno barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin kaga tageynaa isma dhaafno. waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna Facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.